inta labaad waa maxay waa nimaad gaalnimo ku ogeyd ilaahay qeyrkii inuu caabadaad ogeyd muslimiintu la dagaalamayay allo ku kufriyay markaasuu ashahaatay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaahi buu yidhi waa macluumu lkufri saabiqan axdat alislaama fima bacd waa kufri saabiqoo la yaqaanay oo islaam uu ku soo darriyey may fahanteen warka asaga midkaa weeye midkii xanafi muranka ka keeneen khuraasaynda shaaficiyana ay baxdi geliyeen ay leeyihiin aan fiirino hadduu yuhuudi yahay aaminsan in rasuulku uu qolo khaas ku yahay ama ciisawi yahay tafsiil islaamkiisa la aqbali maayo xataa yabra'a min kulli diin yukhaalifu diin alislaam shuruudaas waxay gashaa iyo khilaafka wuxuu galaa man culima kufruhu saabiqan uma aslama uma adhara shahaadatayn labadaa kala fahma meesha khilaafka xanafiya uu galo waa halkan meesha hore ma aha khilaafka xanafiyihii shaaficida bukhari meesha sheeg waa khilaaf daciifa bal axmed wuxuu waa bidcu yiri kitaab axmed markii la weydiiyo shayada الصحابة والتابعون اسكمين خلافين بقول روح والبوس موجست شهادتين كان الإسلام لو حكمه هدان خلاف قدام باعتبارنا إسحاب نراوي صحيح كبا اعتبارية مسألة خلافية ذا يمد مجمع ذا يسكاك هدر من وذادو ميانا هو كلا صارم ورقميات فانتين محاي صاري تيس الضحاب والروح إسلامي ما أتكو إذا قال لي ما موجست كورما إسلامي ما أتكو إذا قال لي ما موجست هذانا إسلامي ما موجست إسلام بوها قال لي ما موجستي هذانا إسلام ما موجستي وطبته زنديق مثلا لو يقال كان مسلما ثم طلع على كفره ثم أظهر التوبة والرجوع عن الزندقة تنوى خلافيه مسألة ومسألة خلاف لما مسألة خلاف كتشره إيوه هي مسألة مجمعة مد أفراد ودين الإسلام كان شغل كلها ينباجرتا وإلي ما دين من كان واقعنه جفاده nin islaamnimo muujisan jiro gaalnimo muujistay baa islaam loo xukumi diin islaam ma aha waxa muslimiinta kamid oo qabana ma jiro wadadka muslimiinta oo aqaanada la socdo islaam baa lagu ogaa gaalnimo kufri akbar uu sameeyay oo falki baa ka sugan kufriga ahaa oo wuxuu sameeyay waa kufri akbar aad leedahay haddana koofi islaam baa lagu camcaminayaa wax sii jirtay ma aha daa'ifo muslimiinta kamid oo qabtana lal jahmiya wal jaahidiyya ahad qaba ma jiro ahlu qibla waxay ku ijmaaceen ninkii islaam sheeganaya gaalnimo muujista waxa loo xukumayaa fi dunya inuu kaafir yahay khilaafku wuxuu ku jira cinda ahli bid'a xukunka ukhrawiga ah laakiin adduunka in gaalnimo loo xukumi والاسكو وافق سياي كتب المقالات اخريه اسك داي وحيابان معاصرين قرين هذا قرانا نقول له غويه ان كبابانيا كل غوينا كتب المقالات اخريه كتب الطوائف اخريه لم سهليه حتى ثمامة بن أشرس الكافر اللعين عند اهل العلم وتلميذه الجاحظ ما قبان نك قال لي ما موجست الا حكومه دونك اسلامنا ما قام وحيليهين هدو جاهلي هينا ومعذور عند الله في الاخره هدوم معاند هانا وكافر معذب محجوج لكن أدونكم حلو حكومة يا ويدين الكفر كذلك الجهم بن صفوان أبو الحسن الأشعري بكسو قوري جاحظ يا ثمام يا جهم بعد ما قوليها ما أنت السلفية الشيخ تأدونك الروبان إسكي إلالي ما كان لما رأيه نين قال لما موجستكو في سنة لو عم عين ما كان لما رأيه كواسا داما قيبة كمذا wanaag doon bay ka laakiin waxay ku khaldameen kufriga tasriixa ay cadaa iyo kufriga laazimkii maalka baa iskaga khaldamay hadad kala fahmi weydana dib badan baa la kulmay